السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لواتني سقالكي بيش تواناد كنا بقول أفرتني تضوء كوبيجن تضوي توانكي بيش أفراد لو يكون لواتني ليه وردق دقة دقالك إيران مراكيبتا أيا إسكو ديارنا إني كجودبان مرينك بيوتك هرمز إيو هشيس إس أفجرت أو جوكتا ودحيا ودح مرايا واشنطن إي تهران maalintii tobanaad ee xabad joojinta u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan. Tehran waxay ku dhawaaqday inay si buuxda dib u furayso marinka Hormuz, halkaas oo xabad joojinta weli ay ka socoto Lubnaan oo dhaqan gashay habeennimadii Khamiistii. Qodobada ugu muhiim wakaaladda Associated Press ayaa sheegtay in Shiinuhu diyaar u yahay inuu qaabilo uraniumka Iiraan ee aadka loo kobciyay qiyaastii 440 kilogram ama loo dhimo heer loo isticmaali karo kobciyay qiyaastii 440 kilogram ama loo dhimo heer loo isticmaali karo ujeedooyin rayid civilian use. Arrintan waxay dhacaysaa haddii Mareykanka iyo Iiraan sidaas isku raacaan. Iiraan ma joojinayno kobcinta uraniumka. Mas'uul sare oo Iiraan ah ma ogolaan inaan si aan xadayno u joojino. Mas'uul sare oo Iiraan ah ma ogolaan inaan si aan xadayn u joojino kobcinta uraniumka. Ma noqon doono waddanka ka reeban sharciga caalamiga ah. Kobcinta uraniumka weli waa qodobka ugu weyn ee muranka dhaliyay. Wadahadallo cusub waxaa la filayaa in wareegga cusub oo wadahadallo ah lagu qabto Pakistan. Wafdiyada inay gaaraan Islamabad Axadda, wadahadalladuna bilaabmaan Isniinta. Dhaqdhaqaaq military markab dagaal ee Mareykanka ee George Ford wuxuu ku sugan yahay Badda Cas, wuxuuna la socdaa 2 burburiya destroyers. Markab kale George Bush ayaa isna ku sii jeeda gobolka. Hadallada Donald Trump, markii heshiis la saxiixo cunaqabateynta si degdeg ah ayaa loo qaadi doonaa. Waxaa jiro waxyaabo wanaagsan ee socdo ay ku jiraan Lubnaan. Ma jiraan khilaafaad waaweyn, waana xalin doonaa caqabadaha. Walaalayaal, intaas ku soo gabagabeynaya wixii war oo kusoo kordho waa in la soo socodsiin doonaa. waa walaalkeen Axmed Cusmaan. Kusoo dhawaada, share gareeya, meel fiicanna gaarsiiya. waa in salaamaya. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.